Bismillahirrahmanirrahim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono hanjabaad culus oo kaga imaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Mareykanka iyo dalalka deeqaha iyo Soomaaliya war ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa daawadayaal warbixintan idinku soo gudbi doona Ilhaan Cumar oo iyaduna kamid ah Kongareeska Mareykanka ayaa madaxweyne Farmaajo sheegtay in muddaxileedkiisu dhamaaday isla markaana looga baahan yahay in uu waqtigan ka soo baxo Villa Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa daawadayaal halkan idinku qaadaan dhigi doona warbixintan ayaana daawadayaal kaga bogan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaana diiradda ku saari doona hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo channelka furanaya gambalaalkaasi durbadii baad oo heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade dowladda Mareykanka ayaa si aan leexleexad lahayn u sheegtay in ay taageersan tahay ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Farmaajo ayay sheegtay in ay ku qabanayso gacan bir ah waxa ayna ugu yeertay oo markaasi in uu ka mid yahay kuwa carqaladeynaya ama carqalada ku haya doorashada dalka Soomaaliya dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay talaabo ka qaadayso kuwa caqabada ku ah nabadda Soomaaliya waxayna ka hortimid shaqo ka joojin oo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheegay maalin ka hor in uu ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay in ay talaabo ka qaado kuwa carqalada ku ah wadada nabadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka isku dayga shaqo ka joojin ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa arin walwal leh waxaan taageersanahay dadaaladiisa ku aadan doorasho degdeg ah oo la isku haleyn karo dhammaan dhinacyada waa in ay joojiyaan ficilada iyo qoraalada ka sii daraya xaaladda ayaa lagu yiri qoraalka dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in kulanka golaha wadatashiga qaran loogu baahan yahay si degdeg ah si loo dedejiyo loona hormariyo hanaanka doorashada waa qoraalkii ugu kululaa ee Mareykanka ka soo saaro xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waqtigan ay ku jirto isla markaana uu si toos ah taageero ugu muujiyo mid ka mid ah dhinacyada ishaya qoraalkan ayaa dhabarjab weyn ku ah ayay leeyihiin dadka faaqida ama u dhunduleela arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna tusmeenayaa in caalamka ka quustay xal isla markaana wixii hadda ka dambeeya ay diyaar u yihiin in ay toos wax uga qabtaan carqalada joogtada ah ee madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mareykanka ayaa awood u leh xayiraad socdo iyo sidoo kale mid dhaqaale uu saaro cid kasta oo carqalada ku ah nabadeynta Soomaaliya waxaana markaasi la rumaysan yahay in hanjabaadda Mareykanka ay bilow u tahay kuwa badan oo ka soo socda dalalka markaasi danaya Soomaaliya gaar ahaan dalalka reer Yurub haddii dalalkan ay hanjabaado noocaas oo kala ay soo saaraan waxa ay caqabad u keeni kartaa horumarkii Soomaaliya ee la soo yabyabay in muddo isla markaana ay soo dhisayeen madaxdii ka horeysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ilhaan Cumar oo iyadana ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa waxa ay ka hadashay khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku baaqday in Farmaajo uu xilkiisa ka dago maadaama muddaxileedkiisu uu dhamaaday sanad ka hor isla markaasina muddo sanad ah uu si sharci darro ku joogo Villa Soomaaliya xildhibaanada Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha wakiilada ee dowladda Mareykanka ayaa madaxweynihii hore Farmaajo u soo jeedisay in la joogo waqtigii uu meesha ka bixi lahaa si doorasho degdeg ah ugu qabsoonto xildhibaanad Ilhaan oo ah markaasi gabar Soomaali Mareykan ah waxay ka tirsan tahay xafiiska talada dalkaasi ee dimuqraadiga waxayna xubin ka tahay guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada dowladda Mareykanka Farmaajo sanad ayuu dhaafay muddaxileedkiisa waxa la joogaa waqtigii uu meesha ka bixi lahaa si doorashada muddada la sugayay ee hore ugu socoto sida ugu dhaqsaha badan ayay ku tiri qoraal ay Twitterkeeda ku baahisay xildhibaanada Ilhaan Cumar warka xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ku soo aaday iyadoo markaasi xalay dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay talaabo ka qaadayso kuwa caqabada ku ah nabadeynta Soomaaliya wuxuuna Mareykanku si cad uga hor yimid
shaqo ka joojinta uu madaxweynihii hore sheegay in uu ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. xildhibaanad Ilhaan Cumar qoraalkan ay soo saartay iyo qoraalka ka soo baxay Mareykanka ayaa waxa ay fasirayaan xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waqtigan waxa uu ku sugan yahay hal qol oo ku yaala Villa Soomaaliya, waxaana la taliyaashiisa ay markaasi doonayaan in ay Farmaajo badbaadiyaan maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo ka gadooday shaqo ka joojintii uu Farmaajo ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. waxa ay doonayaan in ay weerar culus oo markaasi aan laga soo laabanin ku qaadaan filada, isla markaasina filada ka soo dhaxbaxshaan oo ay kuleetiga ka soo qabtaan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee ku hoos jiro filada. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayay ka doorayaan in uu siiyo amar ay ku galaan Villa Soomaaliya, isla markaasina ay gacanta ugu soo dhigaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media oo aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay warbixintan like inoo saar muuqaalka, subscribe inoo saar channelka, fura gambaleelka si turbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga waxa inoogu reebi karaysaa aragtidaada saliimka ee ku aadan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo ah iminka mid qasan. tan iyo warbixintan mid laacina inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.